بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan ka soo gudbinaynaa casharkeennii 36 ee fahamka siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxaan ku soo jirnay dagaalkii Badar, waxyaalihii dhacdooyinkii waaweynaa oo dhacay ayaan ka soo hadalnay. waxaan dhammaadkii maraynay sidii reer Maka uu u gaaray jabkii ciidankooda oo Abijahal iyo madaxdoodii ay u laadeen markay nabiga calayhi salaatu wasalaam ku duuleen. waxaan dhammaadkii qisadii soo wadnay oo hadda aan sii wadaynaa ninkii la dhihi jiray Abu Raafic oo nabigu uu xoreeyey, markaas laakiin addoon u ahaa Cabaas bin Cabdilmutalib. wuxuu yihi reerkan oo dhan waa islaamay, Cabaas iyo hooyadii guriga Umulfadli dhammaantan waa islaamnay. markii warbixintiina soo gaartayna islaamku inuu guuleystay iyo nabigu calayhi salaatu wasalaam annagu waa faraxnay. Abulahabna waa maaragtay naxdin ayaa usoo hoyatay. marka meeshaas casharkeennii hore waxaan ka soo hadalnay Abu Raafic wuxuu yihi anigu waxaan ahaa nin oo warmaha sameeyo farsamadaas gacanta ayaan aqaanay. waxaan ku soo gabagabaynay casharkeennii hore inaysan shaqada iyo farsamadu ceeb ahayn, dadkuna aysan farsamo iyo gacan ku kala fadli badnayn. wadamaha Yurubka oo Soomaalidu ay wada tahriibaanna inay farsamada ku faanaanba. hadda annaga waxaa laga yaaba qofkaas waa birtutuma haddii la yidhaahdo in loo qaato magac xun. ma ahan magac xun, waa shaqo. bal hadda wadamadaas aad joogtid bal u fiirso sida tumaalnimadka loogu faano Black Smith iyo magacyada waaweyn oo lagu faano wey. Black Smith waa birtume, ya waa tumaal qof ah. marka ayagiya marka u tahriibaysa oo u gacan hoorsanaysaa wadankaaga dadkii joogana waad ka faanaysaa. ceeb weyn wey. dadku waxay ku kala fadli badan yihiin oo ku kala fiican yihiin ma ahan qabiil, ma ahan shaqo, ma ahan xirfad, ma ahan wax kale. waxay ku kala fadli badan yihiin ilaah ka cabsiga. taas bisa lagu kala dhari. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiix oo imaamu axmed bin xambal uu kitaabkiisa musnadka ku warinayo ayaa wuxuu leeyahay alaa ina rabbakum waaxid wa ina abaakum waaxid. war ilaahiinu waa hal ilaah, hal rabbiyaad leedihiin. aabbihiinuna waa hal aabe oo nebi aadama la inka soo abuuray. alaa laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin. war qofka carabigaahi kama fadli badna oo kama fiicna qofka cajamiga ah. walaa licajamiyin calaa carabiyin. qofka cajamigaahina kama fiicna carabiga qofka ah oo carabka ah. walaa axmara calaa aswada. qofka guduudan oo midabka guduudka ah lehna kama fadli badna qofka madow. walaa aswada calaa axmar. kan madoobina kama fadli badna oo kama fiicna kan midabka guduudkaa leh ilaa bitaqwaa uu yihi nabigu alayh salatu wasalam. maxaa lagu kala fadli badan yahay? alla ka cabsiga. alla ka cabsiga lagu kala fadli badan yahu nabigu alayh salaatu wasalaam. marka soomaaliya dadkiina qofkii shaqo idin yaqaana niyadda ha loo dhiso, abaalmarin hala siiyo, hala maalgeliyo, ku soco ha leedaha kor u soco ilaa farsamo ka fiican a keentid. yaan laakiin qabiil iyo shaqo iyo hebel iyo waxaas yaan la isku caayan. man ahanba waktigeedii haddii aad tihiin ummadii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. qofba qofkuu ka taqwo badan yahu nabiga uga dhowya calayhi salaatu wasalaam. wuxuu leeyahay marka Abu Raafic anigu nin miskiin ahoo qoryaha bahalkaas warmahaas qora ayaan ahayu yiri. marka anigoo wuxuu yihi ceelkii zamzamka, biyahan zamzamka oo Maka ku yaala anigoo kor fadhiya oo meesha iska fadhiyo waxayga iska qoranayo oo gabadhii Umufadli Cabaas xaaskiisii ila joogto ayaa maaragtay oo ceelka dhabarkayga ay joogto ayaa waxaa yimid uu yihi Abu Sufyaan bin alxaarith bin Cabdilmutalib. ya oo xaarith bin Cabdilmutalibkii nabiga adeerkiisa ahaa wiilkiisa Abu Sufyaana yimid oo Abilahab markaas uu adeer u yahay. ilaa Abilahab nabiga adeerkiisu ah Soomaan oo Abilahab bin Cabdilmutalib wey. markuu soo galay ayaa Abulahab u yeeray markaasuu yihi war balkaalay warka isii yiri, warka isii yiri. markaasuu wuxuu ku yiri wallahi maanta waraan kuu hayaa. haye ka waran maxaa haysaa? u yiri ii sheeg bal informationkii akhbaarta isi. wuxuu yihi niyahow horta nimankii reer Madiina oo nabi maxamed iyo ciidankiisa calayhi salaatu wasalaam waa la kulana. kow
garbaheena u dhignuu yiri markaasay sidii ay rabaan noo laayeen oo intay rabaan naga qafaasheen. xaaladda ku dhacdo ka sheekeyna hadda ayagaana waxay ahaayeen 1,000 nin, nabiga asxaabtiisuna 300 nin, 3 jibaaray ka badan yihiin. ilaahay baana ku dhaartay wuxuu yidhi hadda anugu dadka ma eedaynayo maanta oo wax eed leera falaa lawmun calayhim ma eedaynayo. maxaa dhacay? wuxuu yidhi laqiyanaa rijaalun biidun calaa khaylin bulq bayna aلsamaaءi wاlard wallaahi ma tuliiqu shay-an walaa yaquumu lahaa shay. war ilahay ku dhaartay anugu dadka ma eedaynayo maxaa yeelay waxaa nala kulmay yiri rag oo maarata cadcad oo fardo baroor la wato wejiga cad oo samada iyo ardo dhexdooda ku sugan, wax ay reebayaanna ma jirto, wax u barbar dhigi karo hor istaagi karana ma jiro. markuu qisadaas sheegay oo raggaas ilaa malaa'igtuu ka sheekeynaa, ilahay malaa'igtuu nabiga ku xojiyay asxaabtiisa. abu raafic haddaan ahay wuxuu yihi markii saa uu yiri ayaan inta istaagay inta baalkii meesha yaallay kor ugu qaaday ayaan yiri tilka wallaahi ma almalaa'ika, ilaahay baan ku dhaartaye taasi waxa weye waa malaa'igti. malaa'ig wey wax aad sheegaysaa oo dagaalka galay. islaan wey abu raafic wuu qarsanay, laakiin waxa weeye maanta waa kasoo baxsatay. markaas wuxuu yihi abulahaba inta istaagay wuxuu yihi bahal dharbaaxa oo khatar ah igu dhajiyo yiri cadowga abulahab. markuu ugu dhajiyaan kusoo boodo yiri anugu nin miskiina oo awood yara ahayo yiri markaan kusoo boodo aniga dhammaan inta iqaato dhulka dhigto ugu fariistay wuxuu yihi iska ka garaaco yiri bab abulahab iska dhaarsano cadowga ilaahay. markuu garaacay ayaa umu fadli oo xaaska cabaas bin cabdilmuطalib inta istaagto tiir soo qaadatay ayay la dhacday ilaa ay madaxiisiiba ka daqartay abulahab. marka wuxuu yiri waa naga kacay oo waxayna tiri yiri ma waxaad u garaacaysaa sayidkiisiyaa maqan oo cabaas ha maqan, cabaas iyo abulahabna wada dhasheen, sayidkiisiyaa maqana u daciifsata soomahan maanta ka kacadayo. markaasu isagoo dulaysan uu ka tagay meesha. marka madaxdii quraysh ba asaga kaliyaha ka haray inta kale dagaalka aadan. isagana maxaa ku dhacay? abu raafic wuxuu leeyahay 7 beri ka bacdi cudurka leeraa alcadasa ayaa asagana ilaahay ku tuuray. isaga laftigiisa 7 beri ka bacdi abulahab waa lagu soo booday cuduraa dilay. markii cudurkaasi uu ku dhacay oo uu dhintay ayaa cudur khatarhu ahaa banaankaa la iskaga daayay. macnaha dhowr beri a wax qaadan la waayay meeshaas ku uray. markii caruurtiisi ay ka baqeen in dadku caayaan ayay inta soo qaateen geed weyn oo god weyn qodeen ay ku dilindiliyeen. ya waxa weeye halkaasay kula dilindiliyeen inta ayagoo afka ka xiranayo suntiisa iyo qurunkiisa. ilaahay saas u ihaanaysa ninkii nabiga dhibay oo abulahab oo tabat yadaa abi lahabin ay kusoo degtay. halkaasu asagana ku dhinto kamaba dambeynba nimankii reer quraysh 7 beri bisuu ka dambeeyey oo meesha ku laado. marka xaaladaas adag iyo warbixintaas xun oo murugta leh ayaa reer maka usoo hoyday. sidaasay warka u gaaray. reer madiina ayaga see warbixinta u gaartay? reer madiina waatan sida warbixinta u gaartay. reer madiino nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii uu guuleystay oo gaaladii ilaahay uu jebiyey oo cadowgii islaam kusoo duulay ilaahay uu qabtay ee gardarada waday ee laga waayay meeshiina ka laabta oo abu sufyaan uu yihi waray ciidankii waa badbaaday meeshiina ka laabta ayaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam markuu hubsaday inuu guuleystay ayuu 2 nin oo muslimiintii kamida uu diro reer madiina u bishaare u geeyey. maxaa yeelay madiina munaafiqiin badan iyo yahuud iyo gaalo kalaa wax ka deganaa, kuwiyaa dadka ruxaya oo waxay leeyihiin maxamed iyo asxaabtiisa waa la laayay, nabiga asxaabtiisa waa baabeen, waa ruxan magaaladii o dhan ruxan. markaasaa nabigu 2 nin oo bishaareeya diro. nabigu wuxuu diray caleyhi salaatu wasalaam cabdullaahi binu rawaaxa oo madiine qeybteeda sare ahlu caaliyada u taga iyo zayd binu xaaritha oo qeybta ahlu saafilada leeraada u taga oo halkaas ugu bishaareeya. yahuuddii iyo munaafiqiintiina magaaladii ruuxayaan oo waxay faafiyeen dicaayooyin balaayay faafiyeen asxaabtii o dhan dadkii niyaddii ka jabiyeen. markii ay arkeen qaar ka mida ayaa marka waxayba weliba faafiyeen nabiga xataa inuu dhinto caleyhi salaatu wasalaam. markii munaafiqiinta nin ka mida ayaa wuxuu arkay zayd binu xaaritha oo soo socda oo daabadii rasuulka ee alqaswa la dhihi jiray, hashii rasuulka alqaswa la dhihi jiray, zayd binu xaaritha soo saaran ayay arkeen. markuu munaafiqani aqooday zayd binu xaaritha inuu hashii nabiga wato caleyhi salaatu wasalaam
ayaa wuxuu yihi munaafiqii laqad qutila muxamedu muxamed waa la dila haye wahadihi naaqatuhu nacrifuha waa hashiisiyo naqaano zayd saas u wataa wahada zaydun laa yadri ma yaqulu min arucb wajaaa falla kanina waa zayd oo waxa uu sheegayo maba yaqaano asagoo maaragtay munhazimahoo jabay nin soo jabay wuu yihi marka wuxuu sheegay haka dhegaysanina maxamedna waa la dilay tanina waa hashiisii arrinta munaafiq wey wuu ka faa'idaystay markii uu zayd binu xaaritha soo gaara ayuu ku bishaareeyey oo uu u sheegay nabiga caleyhi salaatu wasalaam inuu ku jiro farxad oo gaaladii ilaahay uu jebiyey si fican ayay ugu warbixiyey markaasaa muslimiintii tahliil iyo takbiir iyo towxiid allahu akbar iyo laa ilaha ila allah kulli markii nabiga caleyhi salaatu wasalaam waataan niri 3 maalmooduu beder ku nagaaday ciidankiisa uu soo guuro soo dhaqaaqay ayaa madaxdii islaamka oo madiine joogay ilaa rag badana madiine ku haray oo aan filayn in oo nabigu caleyhi salaatu wasalaam uu dagaal geli doono oo waa tii safara hadda la raadsaday marka raggiya ka hortoo nabiga caleyhi salaatu wasalaam u hambalyeynaya oo ku soo dhoweynaya marka usaama binu zayd wuxuu leeyahay markii gabadhii nabiga ee la dhihi jiray ruqayah bintu rasuulillaahi markii ay dhimatay ee aan aasnay ayaa nabiga ciidankiisii soo gala nabiga caleyhi salaatu wasalaam maxaa yeele cuhmaan binu cafaan ee khaliifka saddexaad rasuulka nabigu wuxuu u reebay gabadhii cuhmaan oo ruqaya aheed gabadhii nabiga oo ruqayo aheed oo cuhmaan naxaaska uisa u aheed ayaa xanuunsaneed marka nabigu saasuu cuhmaan u reebay marka cuhmaan markuu aasay ruqaya ayaa maaragtay nabigu yimid uu yihi caleyhi salaatu wasalaam sida oo usaama binu zayd uu warinayo nabigu caleyhi salaatu wasalaam markii uu halkaas kusoo guuleystay waxyaalaha dhaca waxaa ka mid ahaa gaaladii waa tii hanti badan ay ka carareen oo hadda hubkii iyo hantidii ay kula soo duuleen islaamku waa qaadanaya sababtoo ah markii horeba islaamka xoolihiisiiba haysteenba xoolihii islaamkaba reer maka o dhan hantidoodii haystaan guryahoodii haystaan caruurtoodii xaasaskoodii la hareen marka tan waa qaniimadii laga reebtay qasab wey inay qaataan oo ku xoogeystaan adduunkana hadda dowlad kasta markay meel weerarto waa qaataan waxa hadda cid ku eeday karta islaamka ma jirtaba hadda islaamka inta la weeraro oo la duqeeyo la baabi'iyo haddana hubkii lagu duqeeyey qarashkiisiina laga qaada sida hadda wadamada caalamka ka socota marka qaniimo oo dad soo duulay hubkooda in la qaato wax ku eeday kara islaamka ma jirto macnaha markaan saas leeyahay dadka wax magaratada o dhana laga dhaadhici karaa nabigu waa u qaadanay waa nimankii soo duulay hubkooda oo weliba nabiga hantidiisii iyo dad asxaabta hantidoodii maka kula haray marka hadda caalamka waa aragteen siduu u shaqeynayo waa ka duwanta sidii hore marka khaniimadii iyo xoolihii ay ka carareen nimankii reer maka ayaa waxaa dhacay markii gaalada ay carareen asxaabta qeybaha raacdaysto daba gashay markii ay daba galeen qaybina khaniimadii soo aruuriyeen qaybina nabigayba waardiinayeen marka markii oo lasoo laabtay ayaa khilaaf dhac nimankii oo khaniimada haystay ayaa waxay yidhaaheen khaniimadan annaga kaliya ayaa iska leh xoolahan naxnu xawaynaha annagaa soo koobnoo soo aruursana annaga soo aruurinay leeyihin cid kalena lama leh kuwii oo cadowga fogeyna waxay yidhaahdeen naxnu naxaynaa minha alcadow annagaa cadowga ka fogeynay annagaa durjinay see noogu diidi kartiin haddii aanan durji lahayn waa lagu qabsa lahaa kuwii kalena waxay yidhahan annaguna nabigaan bawaardiyeynayno in la gaado aan ka baqayn marka wax kuleena markii khilaafkaas uu ka dhacay hantidii ayaa ilaahay qur-aanka soo dejiye wuxuu yihi bismi illaahi araxmaani araxiim yas'aluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilaahi warasuul nabi maxamedo waxay ku weydiinayaan khaniimada ayay kaa weydiinayaan oo khaniimada ka waran yaa lahay kuleeyihin wax tir horta khaniimada ilaah iyo rasuulkiisa iska leh macnaha ayagaa qaybinaya ma ahan wax oo qof kasta u leey aniga haystay aniga haystay ayagaa cadaalad darre samaynayn ayagaan sheeganayn wax ku falayn ilaahay rasuulkiisa oga wakiila marka waxa weeye rasuulkaa qaybinaya cadaalad darrana loogama baqayo fattaqu llaha waaslixuu daata baynikum ilaahay wuxuu yihi aayaddii qur-aankia sii socda ilaahay ka cabsado war dhexdiina hagaajiye oo hasdirinina wa atiicu llaha wa rasuulahu ilahay iyo rasuulkiisa adeeca ya ilahay rasuulkiisa adeeca waxay idin yiraan yeela in kuntum muminiin haddaad tihiin muminiin sidaas qur-aankaasa ilaahay uu soo dejiyey intaa kabacdi nabiga calayhi salaatu wasalaam
halkaasuu meel dhexu inta sii dega ayuu qaniimooyinkii u qaybiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam. nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu soo gaaray meesha la yihahda alrawxa ayaa waxaa la kulmay madaxdii islaamka, halkaas ay ugu hambalyeen, nabiga ay ku soo dhoweeyeen, nabiga asoo faraxsan oo farxad iyo barwaaqiyo bashbash uu la soo laabta ayuu yimid. marka waxyaalaha dhacay waxay ahaan quraysh waxaa laga soo qafaashay 70 nin ciidan gaaraya oo madaxdii u badan. muxuu nabigu ku sameeyey calayhi salaatu wasalaam? nabigu calayhi salaatu wasalaam 70 nin wuxuu kula dhaqmay sida hadda qeyb ka mida qaanuunka adduunka hadda siduu ku dhaqmo. macnaha dadka wax magarata waxaas kale markay arkaan waa wax kale iska fahmi karaan, ilaa dadkii gaaladii iyo bidcadii ayagoo wixii xumaay oo dhan samaynayay xagga kalena diintii tashuush dhinaca uga wadaan. 70kii nabigu muxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam? nabigu wuxuu la tashaday sayd abubakar. wuxuu yihi sayd abubakar, rasuulka ilaahay horta nimanka waa niman tolkeenna ah, waa niman qabiilkeenna ka soo jeeda, waxa weeye hadda maanta haddaan layn anaga waxba faa'iida nooguma jirto, laakiin hantideena iyo guryaha xoolaheena iyo haystaan, madax furasho dul saar, madax furasho dul saar, nin kasta intaasoo lacaga ha bixiyo ha la sii daayo. ya maxaa yeele waa dembiilayaal dagaal, waa dembiilayaal dagaal. haddii bilaash lagu sii daayo berrina waa soo duulayaan, laakiin haddii aan la dilin boo naftoodu badbaaday maaragtay hanti badan laga qaado berri ma uu soo duulayo. marka sayd abubakar wuxuu yihi hanti dul saar madaxooda ha bixiyeen hala sii daayo. nabigu sayd cumar la tashaday. sayd cumar wuxuu yihi maya rasuulka ilaahay, nimankaas maka naga soo saaray oo hantideeni la wareegay oo raba madiine inay kusoo duulaan oo intaasoo shirqool sameeyey oo intaas iyo intaas soo diray, haddaan maanta sii daydid weligood ma joojinaan dhibka, intaan madaxa ka gooyi rasuulka ilaahay, dil intaan hala dhaafiyo. maxaa yeelay hadda qaanuunka adduunka sidaas ogol. macnaha waxa weeye waa mujrimul xarb, macnaha waa niman oo dembiilayaal dagaal ah, bal waa qaadatu mujrimil xarbi, yacni dembiilayaasha dagaalka kuwoodii hogaamiyaasha ahaa, dembiilayaasha dagaalka kuwoodii hogaamiyaasha ahaa oo adduunka hadda 2 maado bis uu ka sameeyo ilaa mar dhow in oo icdaam lagu sameeyo nimankaas la toogto, iyo in oo maaragtay xabsi daa'im lagu xukumo 2daas bis. mar dhow haddana la bedelo le waxa la yidhaha ransom iyo madax furasho ha laga qaado. marka waa wax adduunka dhan ku dhaqmo. marka wuxuu yihi nimankan intaan ha sii dayn si dhibka u haro. maxaa yeele kuwan waa kuwa ardada fasahaadiyey, waa kuwa dadkii masaakiinta laayay, waa kuwa dagaalka soo hogaamiyey, intaan ha sii dayn uu yihi. waa qaanuun caalamiya. nabigu marka wuxuu u bayray ra'yigii sayd abubakar, wuxuu yihi madax furashaan ka qaadaynaa, ayagana waa sii daynaynaa. ya annaga maadaama hanti aan haysan, hantidaas aan ka qaadnay laftigeeda hadhow isku difaacayna. hantideenni iyo xoolaheeni o dhan ayagaa haysta, marka ayagaa iskaga difaacayna hantida aan ka qaadno. ayagana dhib ha ku noqoto, nin hanti badan laga qaada yuusan soo duulin mar dambe. nabigu sayd abubakar hadalkiisa u iishay. nabigu markii hadalkii sayd abubakar uu qaatay calayhi salaatu wasalaam, nabigeena waxa weeye weliba sayd cumar wuxuu yihi rasuulka ilah aniga hebel ii dhiib, asaga aniga qaraabadaydi calina walaalkiis u dhiib, madaxa aan ka wada jarnuu yihi, ninba qaraabadiisa. markii oo intaas ay dhacday, maalinkii labaad ayaa nabigu sayd cumar wuxuu u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sayd abubakar oo meel fadhiyo oynaya. markaasuu yihi rasuulka ilaahi maxaad la oynaysaa? markaasuu wuxuu yihi rasuulka maxaad la oynaysaanuu yihi haddii aan ogaado waxa la oynaysaan waa idinla oynaya, haddii aysa ahayn wax aan la ooyi karana waa iska ooyisiinaya, adiga sayd abubakar waa ina idinla ooya. markaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam abkii liladii carada calaya asxaabuka min akhdihim ilfidaa, waxaan la oynayaa waxa ay iisoo bandhigeen asxaabtaada oo ah inaan nimankaas hanti ka qaato. faqad curida calayhum cadaabuhum adnaa min hadihi shajara, cadaabkoodaba la iisoo bandhigo niman lasii day kara ma ah. ilaahayna qur-aan marka nabiga inta kusoo dejiyey wuxuu yihi maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi. ya nimankaas inuu nabi uma haboono inuuba maxaabiis haysto ilaa uu nimankaas jilciyo. nimankaas waxa wey waa nimanka dambiilayaasha oo ardada ilaahay fasahaadinaya, dadka gaalnimadka in laga badbaadiya ogolayn,
bal in nabad lagu wada noolaado aan ogolayn. ilaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam maka kulama dagaalamayn, dacwadiisu wata nabad inay kula noolaadaan bisay diideen xataa. marka nimanka ardada fasahadinayo waxa weeye inaad haydid xaq uma lihid, ma fiicnaa ilaahay yiri. marka nabigu taasuu la ooyo wuxuu yiri hadalkii sayd cumar inaan qaato ayay ahayd uu yiri nabigu caleyhi salaatu wasalaam. marka nimankan waxaa saas nabiga loo leeyahay, nimankan waa dambiilayaal dagaal oo macnaha ay ahayd in oo ama la toogto ama maaragtay xabsi daa'im lagu xukumo, labadaas mid. qaanuunka caalamigana sidaas u qabo, qaanuunka caalamigana uu sidaas u qabo, xataa gaalada aysan inkiri karin. intaas kabacdi nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey, maadaama uu markii uu xukumayey ninkii waxaa lagu xukumayey 4,000 oo dirham ilaa 3,000 oo dirham ayaa ninkiiba lagu ilaa 1,000 oo dirham ugu yaraa. marka qayb ka mid ahaan hanti haysan nimankaa soo duulay, haddii lagu xukumo maxaa waxba lagama helaya, maxaa la samaynaya? nabigu wuxuu sameeyey caleyhi salaatu wasalaam marka si kale uga faa'idaystay. reer mako waxay ahaan niman qoraalka iyo farta yaqaana, reer madiinana waxba ma qori jirin, reer madiina waxba ma qori jirin. marka nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey ninkii aan hanti uu isku furta haysan, wuxuu sameeyey nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu u dhiibay 10 wiil ee reer madiine ah, wuxuuna yihi bar qoraalka. 10kaas wiil markuu qoraalka baro ayaa la fasaxaya ninkaas, balanta loogama baxayn, lama khiyaanayn, lama dhahayna markaa 10kan dishid bartid waa lagu dilaya, lama dhahayn, lamana dilin. 10kanuu lahaa bar, nabigu markuu barana madaxiisaa loo sii daynaya. 10kaas markay si fiican u baro ayaa madaxa loo sii daynaya. rag kalena nabigu waaba iskaga manaysto, waa iska sii daayay. rag qeyb ka mid a ayaa nabigu caleyhi salaatu wasalaam oo abaal hore nabigu u sameeyey caleyhi salaatu wasalaam ayaa nabigu iska sii daayay. waxaa nabigu dadku sii daayay ka mid ahaa abilcaas ninkii la dhihi jiray ee gabadhi nabiga ee zaynaba qabay. ayada markii ay maqashay ninkeeda inuu xiran yahay, iyada maka maadaama ay ku hartay, ayay kuul dahabaho ayadoo ay lahayd soo dhiibtay, ya ayay soo dhiibtay. markaasaa nabigu u naxo iska daayay. nabiguna wuxuu ku shardiyey inuu zaynabo soo daayo, zaynabo inuu soo daayo. marka nabiga ballantii ayuu oofiyey oo zaynab waa la soo daayey radia allahu canhu. macnaha waxay timid maka, madiine ayay timid. abulcaas marka waa lasii daayay ninkaas. waxaa ka mid ahaa dadka lasoo qafaashay ninkii la dhihi jiray suhayl binu camar. suhayl binu camarna nin caana ayuu ahaa, weliba wuxuu ahaa nin khatiib misqac ah oo yani nin khatiib ah oo qodbayahan oo fasiixa ayuu ahaa. marka sayd cumar ayaa inta soo maray oo markii ninkaas maadaama khatiib uu yahay waxa weeye waa fidna huriyo weyn, markuu khudbeeyo quraysh uu kici tago suu raba u kicinay, aftahan u ahaa, odayaasha dagaal ogayaasha oo kale u ah. sayd cumar inta soo maray yiri rasuulka ilaahayow aan suhayl ka siibu yiri ilkaha hore aan ka siibi, carabka soo dhex carabka ha laalaadiye. nabigu wuxuu yihi maya caleyhi salaatu wasalaam, ilkaha aan ka siibu yiri carabka ha iska lushayo mar dambe khudbayno fidnaan dadke. markaasuu nabigu yihi maya caleyhi salaatu wasalaam, oo qof inuu suura dooriyo, qofka haddii la dilayo lala dagaalan waa la yaqaan, nabigu inuu suura dooriyo waa uu diiday caleyhi salaatu wasalaam. marka dagaalkii bader xaaladihiisu sidaas ay ahaan. ilaahay subxaanahu watacaalana in badan ayuu ka sheekeeyey, in badan ayuu qur-aanka uga sheekeeyey. qur-aan fara badan ayaa ilaahay kaga sheekeeyey. muslimiintana ilaahay waa uu xusiisiyo awoodooda sida u yareed ya iyo sida ilaahay uu ku caawiyey. qur-aanka ilahay uga sheekeey uu ku leeyahy wadkuruu id antum qaliilu mustadcafuuna fi lardi takhaafuuna an yatakhatafakum اnnaasu faawaakum waayadakum binasrih warazaqakum min alayibaati lacalakum tashkuruun. war xusiista oo xusa markii aada ahaydeen kuwo yar oo la daciifsado 300 yaha 300 ay ahaan iyo dhowr iyo 10 kuwana 1,000 ayay ahaan. ardoo lagu daciifsado oo aad ka baqaysan dadku inay idin kala dafaan, markaasaa ilaahay idin soo dumay oo makaa la idin keenay, waa uu idin gargaaray, waa idin hiiliyey. markii hore daciifa ahaydeen oo makaa la idinku daciifsanayay, waa awood yaraydeen. bader sidoo kale waa awood yara, ilaahay markaasaa idin hiiliyey. ilahay idin dumo gurigu idin geey madiina, waa idin hiiliyey. ilaahayna wuxuu inku arsaaqay waxyaala dayibaada inaad ku shukrisaan ayaa xaq u leedihin. marka dagaalkaas bader ilaahay muslimiintu ku kor yeela, gaaladina hoos ugu dhiga. waa meesha sharafta islaamku ay ka qaateen
afar cadow a meeshaas ka soo baxda dagaalkaas markii oo muslimiintu guuleysteen. mushrikiintii horta ku jabay cadaawadooda waa badatay. yahuuddii reer madiinana cirka isku shareereen oo sida islaamka u guuleysan karo ayba la yaabeenba. intaasoo jeeray khayaano islaamka ku sameeyeen ayadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu markii uu joogay madiine u yimid uu dastuur qoray oo aan kasoo sheekaynay oo yahuud xaqooda uu ku siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam oo uu yihi lama taabo karo ayay intaasoo jeer shirqool sameeyeen. markay beder maqleen guusheediina cirkay bay isku shareereen colaadooda. waxaa kaloo colaad ay u korortay oo horta laakiin kor ka islaamay munaafiqiintii madiine joogtay islaamnimaday muujiyeen sida daahirka cabdullaahi binu umaya iyo ubay binu salool raggiisii waa islaameen kor waxa iska dhigeen niman islaama laakiin cadaawadii waa sii laban laabeen. waxaa kaloo colaad la soo baxay niman reer baadiye ahaa ee mooryaan ahaa meelahaas wax dhici jiray markay maqleen islaamka awoodiisa waxay is yidhaaheen dowlad ayaa inka hoos dhalatay oo hadhow inka hor istaagi doonta waxyaalaha oo khatarta ah ya waxyaalaha aad samaysaan oo dhan dowlad inka hor istaagi doonta ayaa dhalatay alleelaha. waxyaalaha marka kulli waa is abaabuleen qabiilooyinkii iyo dhaqdhaqaaqyo badan ayaa bilowday. waxaan kusoo khatimaynaa mid gaaban. niman qaswadii dagaalkii loo bixiyey bani sulaym oo meesha la yidhaha kudri ka dhacday waxay ahayd nabigu calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine yimid. dagaalka badar sida aan sheegna maalinka u dhacay waxay ahayd 17 ramadaan maalin jumca. ramadaan marka waa 17 maalin jumca. waxyaalaha waaweyn oo farxadda ee maalinkaas waqtigaas ilaahay muslimiinta kusoo dhaweeyana waxaa ka mid ahaa in ay ciiddii ramadaan ay waqtigaas dhacday oo farxadaha waaweyn waqtigaasaba ciiddaba la keenaba lasoo dejiyey. ciiddii ugu horreyday ciidaan ahayd markii ilaahay awoodooda muujiyey ayagoo iska daciifeena oo maka ka soo qaxay madiinana aan hore aysa u geli jiren dagaalada noocaasa ayuu beder ku guuleystay. marka haddana ciiddii koobaad oo ciidda soonka ah ay dhacdo oo farxad ay ku ciideen muslimiintu ilaa dagaalkaas 17 ramadaan u ahaa. marka waxaa dhacay nimanka la yiraahdo qabiilka la dhihi jiray bani sulaym iyo bani khatafaan nimanka la yiraahdo ayaa ciidamo aruursaday markay maqleen guushii nebiga oo yiri nimankan maxay tan naga soo hoos baxo madiina ka kaca. marka nebiga waxaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam labadaas qabiil inay ciidan aruursadeen ay madiinaba kusoo duuli rabaan. hadda markii madiine oo meesha islaamku deganaa keligeed markii lagu soo duulo dagaal ka dhaco oo marastii la laayo oo haddii la rabo la qabsado xagee loo cararaya meel damba loo carar lama arko baadiyahana qabiilo cadawaha degan. waxaa qasaba marka oo waajib ku ah in ay duulaanka ay nabigii asxaabtiisu qaadaanoo dadkaasi meeshay joogaan uga hor tagaan haddii la guuleystay haddii la guul daraysto. nabigu marka uu maqlay marka 200 oo ciidana ayuu watay markaasuu bartoodii ugu tagay nimankii soo duuli rabay. guryahoodii ugu tagay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii ugu tagay meel la yidhaha kudur waaba kala carareenba nimankii reer bani sulaym waa carareen. meeshaasaa nabiguna 3 maalmood uu ku nagaaday calayhi salaatu wasalaam isagoo ciidankiisii wata. waxayna arintaasi ahayd bishii shawaal ayay ahayd sanadkii labaad. maxaa yeele dagaalka beder wuxuu ahaa 17 ramadaan sanadkii labaad. tanna bishii shawaal sanadkii labaad ayay ahayd oo nabigu markuu beder ka soo laabtay kabacdi 7 beri ayaa arintan dhacday. marka calaa kulli xaal nabiga calayhi salatu wasalam colalkaas badan ayaa ku kacay ilaa nabiga la isku dayay in la shirqoolo. muxaadaradeena dambe ayaan si fiican uga sheekey doonaa insha allahu tacaala. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuh.